السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سو دوادا روتين كيغا مالنتا جمعها دمانتين سو دوادا شرفي كلام كوركينها أهاتو محلها سؤاشا اللي يسوي ديا وحيتا هاي إن فيساها أو طليانيغا ودنكا طليانيغا سفارة إندونيسيا كتالا لقسي مبحسا oo ma laga qaataa oo ma lagu baxaa su-aashaas hore waa uga soo jawaabay laakiin dadka cusub oo hadda igu soo xirmay ayaa rabaa inaa uga jawaabo safaaradda talyaaniga maxaa la dhahay fiisaha way bixisaa dabcan maxaa la dhahay inta ay ku bixisana kulley ma ahan waqti xadidan ma ahan si qof walba nasiibkiisa uu caawiyo dadaa maxaa la dhahay dad 2 bilood xitaa waa maqlay ani laakiin dad aniga shaqsiyan ka saaya ma ahan dad 6 bilood maxaa la dhahay lagu siiyey dad sanad lagu siiyey laakiin aniga qof gabar waa horeeta fiidii horena oga soo hadlay oo maxaa la dhahay waa hore ahayd xilliga Soomaali xitaa ma imaan jirinba 8 sano ka hore ahayd gabadha 2 sano miya ay ku qaadatay sanad iyo bar meelahaas 8 sano ka hore yacni maxaa la dhahay qofku ugu horeysay oo Talyaaniga ku baxdo arkay ahayd Soomaali meeshan Talyaani maba u imaan jirin laakiin hadda zaaid loo imaada xitaa safaaradaha kaleeto safaarado badan ku yaala Jarmal ku taalo maxaa la dhahay wadamada Yurub safaaradahooda dhan ku yaalaan America Canada Australia so safaarad kasta maadaama uu yahay wadan oo dhisan oo waxa way maxaa la dhahay dawladda dabcan safaaradaha dhan maxaa la dhahay way ku leeyihiin maxaa la dhahay deegaan miya ma aqaan safaaradaha dhan way degan yihiin yes marka safaaradda talyaaniga fiisaha way bixisaa inkastoo hadda ee fududeysay waagii hore xilligaas hadda gabadha idin sheegayo waxa daahiyay waxa way deganaasho lagu xujeeyay soo xilligaas qofkii deganaasho haysta sharci deganaasho waxa loo yaqaanaa sharciga iqaamada qofkii haysta deganaasho waa af Soomaaliya u maleynaabo iqaamo qofkii haysta ku bixi jiray kaarka qaxootiga waagaas lagu ma bixi jirin soo dhif naadir qof oo Soomaali oo Talyaaniga u socdo in uu imaado meeshan laakiin hadda 3 sano ugu dambeysay maxaa la dhahay waa loo imaanay inkastoo sanadkan hadda 2025 bismillaahir rahmaanir rahiim Afrika ma laga soo guuraa isdhehaysiin sida loo imaaday oo Talyaani loo socdo dadka dhan waxay leeyihiin anaga qaxooti marba Talyaani u socda leen Talyaani waxyaalaha cajiibka aan la yaabo waxay tahay waxa arkaysaa islaan weyn oo waayeel oo leh Talyaani u socda aniga soo waxa islaamtan hadda Soomaaliya maxaa looga soo waday wadankeeda maxaa la u fiicnaa marka Soomaalida buufisa wada hay horta Ilaahay u gargaaro su'aasha waxay tahay fiisaha ma bixisaa way bixisaa waxayna ku bixisaa kaarka qaxootiga ama maxaa la dhahay ama warqad hayso ama kaar hayso soo yacni qofka waa inuu soo maraa wadada oo qaxootiga horta oo iska soo dhiibaa kadib markuu warqadiisa wixiisa soo qaato uu safaaradda Talyaaniga tagaya kadib maxaa la dhahay processki marka sidaas uu ku buuxsanaya markuu buuxsado kadib ayaga u soo jawaabayo oo fiisaha siinaya marka maxaa la dhahay aad loo fududeeyay wallahi sida iqaamado kale hadda deganaashaha marka ay leeyahay dawladdaas waxay ku qaadatay sanad yani deganaashaha si ugu dawladaynaysay علشان مركو هرب قفك مركو إمارة عن Oh my god معمولك يا حسن وطن كسبل لكن يا هذا الله في كاتنا صارنا وحاول بروسس دار واي سو قبل السيدة صبر على مركز يصير كتعرض شرع الدجاج تعرفون صارتوا بروسس دار كيف يسمع الطلياني يا لكن حتى آدي وبل أفضل زين هدي إكتر موضوع UN سفارة آدي أفضل هاي محلها سؤاشي إنه حارجينا إنا كبوتين وصفي عنا أفهمتين واكنا محلها روتينك أم فلوج واحد اسكو نحياء هواي يوتيوب كسبسكرايب كسارة سؤال كستا يسو أصحابي سؤال كستا يسو ويديسان إن شاء الله بإذن الله وحرجينا يسفي عن إنا إذن كسو جوابه ومحلها وحكستو أجعشهين إن أوغاتان إن شاء الله يوتيوب كيغا كأوغانسين أو إندونيسيا كسابسان إن شاء الله بإذن الله سود وادر إمانتينا